أهل العلم وحي يراهدين لبا arrimood ayaa Ilaahay wuxuu isku kaalmaystay كوبادي وعلى البر سمفلك يا خيرك dadka loo ihsaan sameeyo arinka labaadna waa at-taqwa Ilaahay cabsidiisa subhanahu wa ta'ala labada arrimood qofka hela wuxuu kulmiyaa rida الناس rida Allah wa rida الناس qofku inay dadku ay ka raali noqdaan oo dadku ay jeclaadaan wuxuu ku gaari karaa waxa weeyaan at-taawun 'ala al-bir samafalka iyo khayrka iyo wanaaga iyo ihsaanka inuu bulshada u shaqeeyo oo khayr iyo wanaag kala shaqeeyo dadkii ayaa jeclaanaya rida Allah ilaahay raali ahaanshiisana wuxuu ku gaarayaa at-taawun 'ala at-taqwa ilaahay cabsidiisa inuu qofku waxa weeyaan ku didaalo la iskuna kaalmaysto waxa lagu gaarayaa ridaha ilaahay dadkii marka labada ku guuleysto oo gaara inay khayrka iyo samafalka iyo ihsaanka khalqiga ay u sameeyaan ay isku kaalmaystaan dhinaca kalena ilaahay cabsidiisa isku kaalmaystaan waxa u taam noqotay liibaantooda adduunyada iyo midda aakhiro labaduba u taam maxaa yeelay dadkiina waa raali bay ka yihiin ilaahayna subhanahu wa ta'ala raali ayuu ka yahay waxa qofku uu raadiyo maantay marka koowaad waxa u badan sida cagsigeed inuu dalbo oo raadiyo in dadku ay ka raali noqdaan markaasoo ridahooda iyo waxay raaliga ku yihiin boo habeen iyo maalin raadinaya qawaaniin baadila haday ku qancahayaan waa u dajinayaan shay xaraama haday loo xalaaleeyo ay ku qancayaan waa u xalaal buleey laaluush haduu ku dalsiin kara waa siinahayaan hadduu ku raali gelin kara waxa weeyaan xilal iyo manaasib aysan mutaysan waa siinahaya habeen iyo maalin wuxuu ku didaalayaa dadka inuu qanciyo kuna qanciyo waxaan ilaahay raali ka ahayn ayuu ku didaalayaa markaas qoladan hadduu maanta qanciyo qolo kale ayaa foolkaana qarxinaysa kuwa hadduu maanta damiyo oo xilal iyo wax uu siiyo kuwa kale ayaa ka cahaya kuwa kale ayaa istaagahaya muxuu qofkaasi wareegayaa dadka ridahoodii buu raadinayaa dadka quluubtoodana ilaahayga abuuray baa haysta hadduu ilaahay xiriirka uu la leeyahay uu hagaajiyo waxa loo dhigayaa dhulka qabuul iyo aqbalitaan baa loo dhigayaa walidaalika baa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ilaahay hadduu adoon jeclaado malaku jibriil buu u naadiyaa ilaahay wuxuu jecel yahay hebel jeclaada markaas malaku jibriil malaa'ikta u naadiyaa ilaahay wuxuu jeclaaday hebel jeclaada ahlu samaa marka ay jeclaadaan thumma yuudacu lahu alqabuul fi al-ard kadibna dhulka ayaa waxa loo dhigayaa aqbalitaan dadku ay aqbalaan waa qof samada laga soo ogolaaday maxabadiisa xagga la geeyay magaciisa xagga laga sheegay ayaa dhulkana waxa weeyaan laga aqbalay oo qabuul ku haysta waxaan arkaynaa aa'imadii muslimiinta الإمام البخاري الإمام مسلم وغيرهم علماء المسلمين تأجل لها إيوا وينا كل سنة كهر إلى هاي أفسد الدنيا كتجي شعيل يا محبة يا الله قبا هبين يا مالنا واللود عين يا قف كسنة وحويان محبة أي قلبك وهيا محايا لي وحي كد دالين أو كد دالين إلهي أبوري إن كبقان أو أي رالي جليان إلهينا سبحانه وتعالى قبول أيوسي يقول كودك قف كمان أنت ملايين كستأو بحيو كهل مهيو قبول يقبلتان كهل مهيو كهل كرا إنه يراد إلهي سبحانه وتعالى نور عليك يا نحوس سمو وظلم